Soomaaliya waxa ay wajahaysaa dhacdo ishaysi siyaasadeed oo ugub ku ah fagaaraha siyaasadda. Isqabsigani waa nooc cusub. Hore siyaasadda Soomaalida waxa uu soo maray khilaaf ka dhexdhashay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare, madaxweynaha iyo dowlad goboleed, xukuumad iyo baarlamaan. Hadda waxa socda ishaysi loogu wanqalay qof ilaa qof. Wasiirada xukuumadda intooda badan ayaa ishaysta. Waxa gabi ahaanba taagan shaqada xukuumadda iyo adeegyada dowladeed. khilaafku waxa uu saameeyay dhammaan wasaaradaha xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Gunta khilaafka. Awoodda kooxda isku raranka ee UPD. Bilowgii sanadkan waxaan tabinay in xukuumadda Xamse u dhutun doonto magacyada awoodda madaxtooyada ku jooga ee wasaaradaha la geeyay. Imika waxa soo baxaya in xukuumaddu ay ka dhaqaaqi laadahay wasiiro, agaasimayaal iyo saaxiibo aan ku shaqaynin dastuurka, siyaasadda iyo amarka horjoogaha fulinta ee ra'iisul wasaaraha. awoodda kooxda ayaa keentay in wasaaradaha dhexdoodu ay isqabsadaan. In ka badan 10 wasaaradood ayaa wasiirada, wasiiru dowlayaasha ku-xigeenada iyo agaasimayaashu aysan isku gacan bannaanayn oo khilaaf xooggan ka dhexeeya. 2. Kuloolanka dhaqaalaha. Dal sida Soomaaliya u nugul oo aan lahayn hay'ado kala madax bannaan oo xadida hantida dadweynaha. Waxaa xoogaysta musuqa, eexda xatooyada iyo farsamooyinka lagu lunsado dhaqaalaha dalka. ra'iisul wasaare Xamse iyo xukuumaddiisu waxa ay isugu dhan tahay in lagu sheego ka macaashada mashaariicda, shaqaalaysiinta qaraabada iyo isticmaalka awoodda xafiisyada. Ilaha dhaqaalaha ayaa halka ay ku kala tagsan yihiin wasiirada iyo shaqaalaha wasaaraduhu. Dhacdooyin ama kaagle ayaa xogaha la ururiyay 10 bilood ee la soo dhaafay ay muujinayaan. Kuwooda u horeeya oo la soo bandhigi doona bilaha nagu soo wajahan. Waxa ka muuqda tallaabooyin aysan wali hore u suuraysan shacabka Soomaalida. gaar ahaanna marka laga hadlayo musuqmaasuq, qaraabakiil iyo ficillo hareer marsan nooc kasta oo dowladnimo. 3. Qaab dhismeedka wasaaradaha. Habka ay u qaabaysan yihiin wasaaradaha dalka ayaa wax laga bedelay. Wasiir kasta oo awood badan ama taageero hore ugu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qaatay siyaasadda awoodda oo dhan waa aniga. wax iga reeban ma jiraan. Tanna waxay keentay nidaamka 4.5 uu ka dhigayo wasaaradaha xukuumadda, xiriir reereed iyo deegaano gaar ah. tallaabadaas waxaa laga diiwaangeliyay 8 ka mid ah wasaaradaha ay majaraha ama foolaadka u yihiin wasiirada ku dhow madaxweynaha ee kalsoonidiisa ku jooga, kuwaas oo aan ka amar qaadan ra'iisul wasaaraha magacaabay ee dalka. waa kuwa wasaaradaha ishaysashada ugu badan ka jirto waqtigan. in ka badan 15 wasaaradood ayaa laga soo sheegay khilaaf gaaray xafiisyada sare ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxtooyada. wasaaradaha imika shaqadooda ayay saamaysay, waxayna ka kooban yihiin wasaaradda qorshaynta, batroolka ama shidaalka, caafimaadka, beeraha, duulista hawada, arrimaha dibadda, gaashaandhigga, warfaafinta. wasaaradahan ayaa ah kuwa ugu hooseeya ay gaadhay wada shaqayn la'aanta wasiirka, wasiiru dowlaha, wasiir ku-xigeenka ama agaasimaha guud. ugu yaraan 2 ka mid ah oo aan wax wada shaqayn ka dhaxayn. wasaaradaha qaarkood agaasimayaashooda ilaa iyo hadda 10 bilood ee la soo dhaafay, markii saddexaad ayaa la kala bedelayaa. agaasinka qaybta dhaqaalaha ama maamulka iyo maaliyadda isna ugu yaraan 2 goor ayaa la bedelay wasaaradaha qaarkood si dhaqaale loo musuqmaasuqo. wasaaradda maaliyadda iyada xaalkeedu waa mid ka duwan dhammaan wasaaradaha kale. saamaynta ugu badan waxa kule madaxweynaha oo u maamulaya sida xafiis uu ka yahay wasiir. xubno shaqada laga joojiyay oo warbaahinta loo dusiyay eedahooda oo ah kuwa waaweyn ayuu amray inaan waxba laga qaadi karin. madaxweyne Xasan ka sokow inuu habdhaqankiisa xalay si cad u cadeeyay kuwa jahan isagu uu yahay maamulaha wasaaradda maaliyadda. haddana habdhaqaaqa la yaab kale waa in wasiirka habeennimadii Jimcaha lagu amray inuusan cayrin dhaafay shaqo joojin ku samayn karin shaqaalihiisa. sidaas oo kale fiidnimadii Sabtida waxaa lagu sameeyay shaqo ka cayrin yaab badnayd wasiirka sida loo dhigay. tallaabada shaqo ka cayrinta wasiirka maaliyadda ee madaxweynuhu qaaday waxay fayday sida Xasan ugu foogan yahay nidaamka wasaaradda maaliyadda. isla wasiirka la saaray ayaa ku sheegay qoraal u muuqday macsalaameyn oo uu soo saaray inuu isku dayay in siyaasadda laga dhex saaro hanaanka deyn cafinta iyo dhaqaalaha Soomaaliya, laakiin si aan wanaagsanayn siyaasadda loo dhexgeliyo wasaaradda maaliyadda. waxa kale oo uu tilmaamay inuu ku faanayo in 13 bilood oo uu xafiiska joogay shaqaalaha mushaarkooda uu bixiyay, taasoo muujinaysa inuu sii ifinayo warka in dowladda federaalka ee Soomaaliya hanaankeeda dhaqaalaha uu sii dhimanayo. wasaaradaha waxbarashada iyo arrimaha dibadda oo loo yaqaan wasaaradaha la biilo ee iyagu aan dhaqaale laga samaynin inta badan, inkastoo ay qabaan cudurka wada shaqayn la'aanta iyo iskhilaafka gudahooda,
haddana yabaqooda ayaa si hoose u hulaaqaya inkasta oo wasiirada wasaaradahan dhaqaaladoon aysan ahayn sida saaxiibadooda ka sarreeya haddana ifafaalaha muuqda waa in isbedeladu ay saamayn doonaan toddobaadyada dhow gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo uusan madaxweynuhu ku qanacsanayn in laga hor yimaado qaar ka mid ah saaxiibadiisa wasaaraddaas jooga iyo la taliyihiisa arrimaha siyaasadda iyo xidhiidhka dibadda oo ah gabadha madaxweynaha hay-adaha madaxa bannaan ee hoggaanadooda la beddelay iyo kuwa la sameeyey bilihii lasoo dhaafay waxaa ka dhex taagan qayladhaan xoog leh qayb ka mid a mashaariicaha hay-adahan yaallay gaar ahaanna hay-adda tayadhowrka sida loo maamulay ayaa leh ama kaag maadaama cidda la siiyo oo dhan ay noqdeen shirkado hadda la asaasay oo qoyska madaxweynuhu ay qaateen dhammaan dhinacyada aan soo sheegnay ayaa isku haysta qandaraasyo manfac ama mansab wasaaradaha arrimaha gudaha waxbarashada iyo arrimaha dibaddu waxay u muuqdaan kuwan ka nabadgalay mushkiladaha khilaafka ee dhinaca dhaqaalaha ka jira waxaa loo sababeeyey ragga hogaamiye wasaaradahan waan damac maalboob weli laga soo diiwaangelin wasaaradda gudaha walow awoodihii shaqo la kala qaybiyey oo qaarkood wasiiru dowlayaashu awood leeyihiin haddana wasiir faarax fiqi iyo huruuse waxa ay ka dhex muujiyeen wasaaradahooda hoggaan sarraysa marka loo eego isqabsiga xarkaha goosta ee wasaaradaha badan ee xukuumadda ka dhex jira xamse eedaysana lagu xukumi doono eeduusan toos u gelin dad badan waxay qabaan ra'iisul wasaare xamse ay qasab tahay inuu tallaabo qaado ka hor bisha 8aad si loo badbaadiyo wejiga xukuumaddiisa loogana hortago in khilaafku bannaanka u soo baxo kaasoo ugu dambayn kalifi kara in cidda eedda qaadanaysa ay isaga noqonayso ugu dambayn qaar ka mid a saaxiibada madaxweyne xasan sheikh ee lagu taxay wasaaradaha dowladdu waxay bilaabeen hadda in eedaha oo dhan ay isaga leexiyaan dhinaca wasiirka koowaad xamse cabdi barre oo ay si toosa ugu xamanayaan inuusan lahayn kudhac hoggaamineed iyo la imaansho siyaasad lagu hagayo howlaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee hoggaankeeda uu ku magacaaban yahay ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu fulin doonaa dhammaan qalliimada guud iyo kuwa casriga ah ee laserka